محمد عوالة لوغا oo kamid ah dhalinyarada ku shaqeysata ganacsiga isku bedelka lacagaha ana maamulaha guud ee shirkadda Future Trade ayaa sheegay inuu xulka gobolka Badhan uu guddoonsiin doono lacag dhan $200,000 Mareykanka kala maraan wax ka weydiinay bal in lacagtani tahay kulanti wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan caalamka waxaan ka hadlaynayaa waxa ay tahay Maxamed Cawaale oo ahaa ninkii aasaasay shirkadii Future. Maxamed Cawaale ayaa dadka Muqdisho hantidoodii inta badneed dhacay kadib isagoo u hooyday ama aaday waqooyiga oo markii hore uu ka yimid. Dhawaalahani ayay soo baxday Maxamed Cawaale oo sheeganaya in ilaa 200 ilaa 150 kun oo dollar uu u siin doono xulkiisa uu ka taageero gobolada waqooyi in uu siin doono. Taasi oo inta badan dadka fajac ku riday kadib markii dad badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ee u dhibaataysan yihiin saameyntii ku yeelatay lacagtii uu kala tagay Maxamed Cawaale. Dhalinyarada badan ayaa ku sheegay qaarkood inay bajaaje ay lahaayeen iska gadeen oo yoomigooda ay ku shaqeysan jireen. Fursad ka fiican ayaad ka hesheen lacagtaasi ayay waayeen. Qaar ayaa ku sheegay in caruur aboona Maxamed Cawaale looga oo kamid ah dhalinyarada ku shaqeysata ganacsiga isku bedelka lacagaha ana maamulaha guud ee shirkadda Future Trade ayaa sheegay inuu xulka gobolka Badhan uu guddoonsiin doono lacag dhan $200,000 Mareykanka kala maraan wax ka weydiinay bal in lacagtani tahay lacag loo sheeganayo oo ay sheeganayeen bulshada magaalada Muqdisho taasina waxay yareynaysaa aafada qaybo kamid ah bulshada haysato oo qabyaalada sidaas oo ay tahay haddana gobol kasta aba ganacsiyada ka soo jeeda ama haldoorka ka soo jeeday waxa waajib ku ah inuu taageero dadkiisii ama gobolkiisii sidoo wax u tar lahaa dhiirigelin loo sameyn lahaa xalay ahayd maamulnaya kota kuma ballan qaaday inaan bixinayo hadii ay xooyaan koobka ay ii keenaan balse ciyaartan markaan arkay anigu lacagtii waan ka badiyay oo waxaan ka dhigay $200,000 oo waliba lacagtana dhex loo dhigayo meel cad la dhigayo hadii ay koobka guriga igu keenaan lacagta qadanayaan kolka gobolka shirkad baad furatay shaqo furatay baraha bulshada Soomaaliya waxay haysataa ilaa dadka qaar waxay sheegayaan in lacagta aanad lahayn lacagta shirkadda ee dadka reer Muqdisho ay leeyihiin wala oran karaa lacagtani waxa weeye lacagtii dadka bulshada Soomaaliyeed ee shirkadda ka furatay iyo suuqyo kala badan oo caalamka kamid ah oo hadda aysan Soomaalidu aysan ogeyn ayaa horta anigu aan professional ka ahay suuqyadaana sida wax looga faa'iideysto dad badan hadda waxaan bari doonaa akademiyada xataa laftarkeeda furi doonaa si lacag looga sameeyo laftarkeeda xataa waxaan leeyahay $1,000 in $2,000 u dhalayo balse marka qaar waxaad arkaysaa inaan video soo galo oo aan $2,000 $2,000 aan bedelaya dad mis macnaheedu waxay tahay hadii aan $30 ama $30 wax ka yar aan 2 saacadood gudahood u bedeli karno $2,000 inaysan aniga agteeda maanta waxba qiimo ah aysan ka helin $2,000 wax ka badan aan bixiyo shirkadda Future Trade dhowr jeer baa su'aal lagu weydiiyay barbaahinta lagu weydiiyay xamar bi ka shaqeynaysay hadii ka shaqeynaysayna si sharci darro loo xiray aniga si sharci darro loo xiray markii la soo yimid hal mowqif oo kaliya la qaatay lacag baa laga xayiray kontrakada waa la qaatay dukumeentigiisa dadka noo dhaxayna waa la qaatay aniga dadkayga mataliyay xildhibaanada meesha ugu mataliyay ama odayaashii kale meesha ugu matalayay waxay had iyo habeen u soo jeedeen intay halkaas hawshaas ka socotay sidii loo furdaamin lahaa shirkadda iyo hantideeda khaaska waxay